hay-adda USCIS oo iyadoo ah hay-adda qaabilsan in ay process garayso applicationada iyo araajida dadka soo galootiga ah ee immigrantska ah ayaa waxa ay bilowday dhaqan aan la mahadin kaas oo ah in ay ka kansalaan dadka inta badan sugayay inay qaataan dhalashada dalka Mareykanka kuwaas oo ku baasay imtixaanka laga qaado dadka noqonayo citizenka. imtixaanka markay soo gudbeen background checkii iyo baaritaankii lagu samayn lahaa ay ka soo gudbeen oo farihii iyo wixii laga soo qaaday oo dhaar suga ay yihiin ayaa hadda waxa ay bilowday hay-addan in ay kansasho ceremonygii ama xafladihii lagu qaban jiray dadka soo galootiga ah ee dalkan Mareykanka oo iyagu noqonaya dad citizens ah oo dalkan Mareykanka dhalasho ka haysta. waxa ay bilaabeen in ay ka kansalaan ceremoniyo ama xaflado fara badan oo lagu qaban lahaa arrinkaas awgiis. waxaana xafladahan lagu qaban lahaa 3 meel oo ka mid ah New York bay ahayd. hase yeeshee haddeer waxaa Minneapolis aan naga soo gaarayo warar sheegaya iyadana in lagu bilaabay in dad imtixaanka ku baasay oo dhalashada inay qaataan oo loo dhaariyo sugayay iyagana laga kansalay shalay ilaa haddeer ilaa maanta waxa soo gaaraya dadkaas warqado. marka waxaan malaynayaa in ay dhihi doonaan imtixaanka dib loogu celinayaa. waxa kale oo sidii madaxweynaha iyo xirtiisaba ay ballan qaadeen waxa bilaaban doonto in applicationada dib loogu laabto oo lagu sameeyo verification ama cadeymo hor leh. waxaana la raadin doonaa baa la yidhi sidii green cardka oo kale dib loogu laabanayay ama dadka I-94 ka qaatay ama asylumka iyaga naftooda applicationadooda dib loogu laabanayay ayaa waxaa la bilaabi doonaa baa la yidhi dadka imtixaanaadka ku baasay oo diyaarka u ah inay noqdaan citizens ama muwaadiniin dalkan dhalashada ka haysta ayaa iyaguna applicationadooda dib re-verification loogu samayn doonaa. shalay waxaa kale oo la furay hay-ad cusub oo meel weyn degtay oo xafiisyo cusub furatay. hay-addan ayaa waxaa lagu magacaabay hay-adda dabagalka iyo baaritaanka in dib loo booqasho loogu sameeyo applicationada ay soo xareysteen dadka magangelya doonka ah, dadka qaxootiga ah, dadka dhalashada qaadanaya iyo dadka green cardka qaadanaya intaba, iyo sidoo kale darbika boodka. hay-addan ayaa waxaa loo sameeyey arrinkaas oo keliya waana ballanqaadkii ay sameeyeen madaxweynaha iyo qolyaha u qaabilsan Homeland Security-ga sida directorka Kristi Noem oo kale iyo xerta qaabilsan arrimaha madaxweynaha kala taliya arrimaha immigrationka iyo soo galootiga. marka arki doonaa insha Allah tacaala. laakiin haddeer waxaa bilaabatay in dadka laga kansalo application ceremonydii ama xafladihii lagu dhaarin lahaa dadkaas oo dhalashada ay ku qaadan lahaayeen. so darbika bood kaliya lama haysto, dadka asylumka raadinaya kaliya lama haysto, dadka qaxootiga oo soo galaya dalkana kaligood lama haysto, dadka hataa green cardka haystay oo applicationada buuxsaday oo qaadanayay dhalashada dalka Mareykanka oo dhaarta kaliya u dhinneedna waa laga kansalay. marka arki doonaa insha Allah tacaala waxay ka soo kordhaa Abdullaahi idmo nala soco. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.